maxkamadda gobolka bari ee Puntland ayaa xukuntay 5 dhalinyaro ah oo tacaddi u geystay qoys danyar ah oo ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka bari. Laamaha amniga Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay dhalinyaradan kuwaasi oo tacaddi foolxun u geystay qoys danyar ah oo kamid ah qoysaska la heebsooco ee ku nool magaalada Boosaaso. Dhalinyaradan ayaa lagu riday xukunno u dhaxeeya 5 sano ilaa 6 sano oo xabsi ah iyo sidoo kale min $4,000. dhalinyaradan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal ay ka duubeen qoysaskan xilli habeen ah iyagoo gurigooda hurda, waxayna u geysteen jirdil iyo handadaad kale oo dil ah. Sababta falkan keentay ayuu booliska ku sheegay inuu salka ku hayo dad isku aflagaadeeyay barta TikTok, taasoo dhalisay in loo dhibaateeyo qoyskan. Bulshada gobolka bari ayaa aad uga carooday falkan, iyagoo ku tilmaamay xadgudub weyn oo ka dhan ah bini'aadanimada iyo dhaqanka Soomaaliyeed. isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus leh daweynta xanuunkaaga. waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle. badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.